بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن wanaagsan khiyaarta sida tooska wada nagala xiriiro halkani waa quruxsama production YouTube channel marka hore asxaabta waxaan idinka codsanayaa in aad subscribe saartaan channelkayga like share comment intuba waa muhiim ifka lagu yahay walaalbaan ilaayay ku soo dhawaada warbixinteena xiisaha lahayd aynu kaga hadli doono cudurka loo yaqaano coronavirus ku soo dhawaada asxaabta cudurka loo yaqaano coronavirus ayaa si xawli ah ugu fidaya guud ahaanba dunida isagoo qaarad magaalo si dhakhso leh ugu gudbaya guud ahaanba caalamkan iyadoo ay sii kordhayso tirada dadka laga helay cudurkan ayaa ugu horreyn waxa uu ka soo bilaabmay waddankaasi China iyadoo ay cuneen xayawaan ay diinteenu rabtay in la cuno oo ilkaha sare leh sida xayawaanka loo yaqaano masaska sidoo kale fiidmeerta iyo xayawaano kale oo sunta kala qaata haddaba waddanka Mareykanka ayaa xanuunkan u helay sida ay sheegeen tallaal ay ku daaweyn doonaan cudurkani waxaa istaagay guud ahaanba dhanka ganacsiga suuqyada masaajidada goobaha lagu cibaadeysto goobaha lagu ciyaaro iyo goobahii ay dhammaan ku kulmi jireen dhammaan dadweynaha dunida ku nool suuqyada waddankaasi China ayaa noqday guud ahaanba faaruq isagoo ahaa suuqyada ugu dhaqdhaqaaqa badan caalamka ay ku nool cudurkan ayaa lagu kala qaadaya taabashada neefsashada iyo hindhisada cudurka coronavirus ayaa daawo loo helay sida ay sheegeen waddankaasi Mareykanka ayaa soo saaray tallaalkii ugu horreeyay ee lagu xakameyn doono faafitaanka cudurka COVID ama cudurka loo yaqaano coronavirus xilli uu cudurkani garaacay in ka badan 150 dal tijaabadan tijaabo ayaa tallaalkan ku socota 6 toddobaad kadib ayaa la filayaa in si rasmi ah uu dhaqan galo waxaana markii ugu horreysay lagu tijaabiyay bukaan qaba cudurka coronavirus waxa si guud lagu tijaabin doonaa dadka qaba cudurkan oo da'doodu ay u dhaxayso inta 18 ilaa 55 jir tallaalka loo yaqaano mRNA ayaa isku dayaya in uu kiciyo jawaab celinta habdhiska difaaca jidhka wuxuuna durbadiiba muujiyay ififaalo wanaagsan helitaanka tallaal aamin ah oo wax ku ool ah oo lagaga hortago infekshinka SARS COVID waana ahmiyad caafimaad oo degdeg ah ayaa uu yiri agaasimaha Machadka Caafimaadka Qaranka Antonio tirada dhimashada Mareykanka ee fayraskani ayaa kor u kacday ilaa 69 halka tiradii guud ee la xaqiijiyay ay gaarayso 3800 qof sida laga soo xigtay jaamacadda Johns University madaxweynaha Donald Trump ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah Jimcihii taasoo ah isku day la doonayo in lagu joojiyo faafitaanka fayraska Mareykanka suuga istaago adduunka oo dhan ayaa ururka caafimaadka adduunku waxay u diiwaan geliyeen ilaa 165,000 oo xaaladood iyadoo ay geeridu guud ahaan tahay 6,500 saxaabta ee ka barnaamijkan intaas nagu eegay fadlan waxaan idin ka codsanaynaa subscribe like share asxaabtiina u soo gudbisaan والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تنين برنامج كلام إذا كنتم تناحدي كيتجنا بابا